kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxa kamid ah filla Soomaaliya oo jawaab adag ka bixisay dhaleeceynta uu madaxweyne Farmaajo kala kulmay in uu ka baaqday munaasabadii caleemasaarka ee madaxweynaha Jabuuti maxay ka tiri madaxtooyada wararka sheegaya in uu madaxweyne Farmaajo iska diiday ka qaybgalka munaasabadaasi jawaab culus oo ay filla Soomaaliya siisay siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaan idin soo gudbin doonaa xog lama filaan ah oo laga helay safarka uu madaxweynaha Puntland ku gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya maxaad kala socotaa in madaxweyne Dani uu kulan xasaasi ah la qaadanayo Uhuru Kenyatta maxaase ka jira in labadaasi mas'uul ay ka wada hadli doonaan arrimo quseeya Soomaaliya xilli uu meeshii ugu xumeyd gaaray xiriirkii xukuumadaha Muqdisho iyo Nairobi wararkeena kalena waxaa kamid ah dawladda Shiinaha oo ciidamadii ugu badnaa iyo markab nooca dagaalka u soo dirtay Soomaaliya ma dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbatay ciidamadan iyo markabkan dagaal waa samaxay qorshaha loo adeegsan doono macluumaad ayaan idinkaga haynaa madaxweynaha Galmudug qoorqoor oo xiisadii ugu cuslayd qoorta la galay iyo kulamo uu ka wada magaalada Gaalkacyo miyaa lagu dhagan yahay qoorqoor maxayse tahay xiisada uu bartanka kaga jiro iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad loo dhaariyay xilka madaxweynaha Jabuuti maxay ka yiraahdeen mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda caleemasaarkiisa oo uu qayb ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana Sabti 15 bisha shanaad ee May sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka haddaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaane fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena waxaynu ku hormaraynaa filla Soomaaliya ayaa waxa ay jawaab adag ka bixisay dhaleeceynta uu madaxweyne Farmaajo kala kulmay in uu ka baaqday munaasabadii caleemasaarka ee madaxweynaha Jabuuti iyadoo saacadihii u dambeeyay si aad baraha bulshada la iskula dhex marayay ee warar ku saabsan in madaxweyne Farmaajo uu iska diiday in uu ka qayb galo munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa ka soo baxaya arintaasi warar kala duwan iyadoo xubno ka tirsan filla Soomaaliyana ay arintaasi si adag uga jawaabeen madaxweyne Farmaajo ayaa casuumaadaasi waxa uu ku bedelay sida xogaha qaar ay sheegayaan ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble iyadoo munaasabadii maanta uu ka qayb galay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble haddaba siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa siyaabooyin kala duwan ugu dhaleeceeyay madaxweyne Farmaajo in uu ka baaqsaday isla markaana uu cadow u aqoonsaday dawladda Jabuuti oo aynu nahay walaalo waxa aynu ku dhaleeceeyeen in uu markaasi Ethiopia saaxiib ka dhigtay markii ugu dambeeyay ee haatan Muqdisho uu ka dhoofayna uu gaaray dalka Uganda si uu uga qayb galo caleemasaarka Yoweri Museveni haddaba ila ka tirsan filla Soomaaliya oo la hadlay warqad TV ayaa waxa ay ka jawaabeen eedeymaha kala duwan ee madaxweyne Farmaajo uga imaanaya ee siyaasiyiinta mucaaradka ah xubnahan oo si gaar ah inoogu warramay ayaa waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo tan iyo markii uu hortagay baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golihiisa shacabka kowdii ee bishan aynu ku guda jirno ee May uu isagu wareejiyay dhammaan awoodihiisii dastuuriga ahaa sida ay ilahan inala hadlay kana tirsan filla Soomaaliya ay ku doodeen waxa ay daliishadeen in madaxweyne Farmaajo dhammaan howlaha dalka uu ku wareejiyay ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble waxa ayna sheegeen in madaxweynuhu uusan arintaasi ku qaldaneen isla markaana ay mudan tahay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu ciyaaro doorkii uu ciyaari lahaa madaxweyne Farmaajo madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqsaday safar uu ku tagi lahaa magaalada Jabuuti ee caasimadda waa dalka Jabuuti siyaasiyiinta mucaaradka ah ayay xubnahan ka tirsan filla Soomaaliya waxa ay ku dhaleeceeyeen in aysan iyagu marnaba doonaynin in madaxweyne Farmaajo uu shaqeeyo amaba shaqada uu wareejiyo waxa ay sheegeen in siyaasiyiinta mucaaradka ah ay hore ugu doodi jireen in madaxweyne Farmaajo uu wareejiyo awoodda haddii haatan uu wareejiyayna aysan marnaba ogolayn in markaasi madaxweynaha ay ku ammaanaan tallaabada uu qaaday waxay sheegeen in labada dhinacba uusan madaxweynuhu ka shaqayn karin si kastaba ha ahaatee jawaabtan xubno ka tirsan filla Soomaaliya waxay ku soo aadaysaa iyadoo si aada baraha bulshada looga hadalhayay madaxweyne Farmaajo oo lagu dhaleeceynayay in uu isagu iska diiday inuu ka qayb galo munaasabadii caleemasaarka madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle waxaase xusid mudan in dawladda Soomaaliya ay kal hore shaacisay in xurguf siyaasadeed ay kala dhaxayso dawladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti
qaybaha hore ee wararkeena ayaad la socotaan markaana waxaynu eegaynaa xog lama filaana oo laga helay safar uu magaalada Nairobi ku tagay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo warar sheegaya in uu kulamo la qaadan doono madaxda ugu sareysa ee dalkaasi Kenya. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo maalmihii ugu dambeeyay isagoo ku sugnaa magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gaaray magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. xogihii ugu dambeeyay ee aynu ka helno dalka Kenya ayaa waxa ay ku waramayaan in safarka madaxweynaha Puntland ee dalka Kenya uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed, xoojinta xiriirka Puntland iyo Kenya iyo soo xirista mashruuc laga fulinayo deegaanada ee Puntland. sidoo kale wararka aan helnay ayaa intaasi ku daraya inay suurtagal tahay in madaxweyne Saciidan uu la kulmo Uhuru Kenyatta. madaxweyne Dani waxaa la sheegay inuu diiradda saari doono dhaqaajinta mashruuca dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo, taasi oo hadda gacanta ku hayso hay'adda qaramada midoobay ee la yiraahdo UNOPS. dhanka kale madaxweynaha Puntland waxaa la filayaa inuu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda hay'ado iyo safaarado ee Soomaaliya ee halkaasi ku leedahay, kuwaasi oo ka taageera Soomaaliya ee dhanka horumarinta. balse xogta aynu helnay ayaa sheegaysa in muhiimadda ugu weyn ee halkaasi uu tagi doono amaba uu u joogi doono Saciidani in ay tahay sidii uu ula kulmi lahaa madaxda ugu sareysa ee dalkaasi Kenya. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaa la socotaan. dowladda Shiinaha ayaa ciidamadii ugu badnaa iyo markab dagaal waxay u soo dirtay biyaha Soomaaliya. dowladda Shiinaha ayaa maanta oo Sabti ah markab nooca dagaalka ah iyo ciidamo waxa ay u soo dirtay xeebaha dalkeena Soomaaliya si ay u galbiyaan maraakiibta ganacsi ee isticmaala biyaha Soomaaliya iyo sidoo kale meelaha kale ee ka baxsan. markabkan oo ah mid aad u ballaaran ayaa waxaa dul saaran diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ee helicopterska loo yaqaano, gantaalada wax burburiya iyo doomo nooca dheereeya ah. wuxuuna noqonayaa markabkii 38aad ee ay la socdaan ciidamada xoreynta badda ee loo yaqaano BLA. wararkii ugu dambeeyay ee ku gadaaman markabkan ayaa sheegaya inuu ka soo aanbabaxay dalka Shenzhen oo ku taala gobolka Xinjiang ee dalkaasi Shiinaha. ujeedka ayaa wuxuu yahay sidii ciidamada badda ee Shiinaha iyo maraakiibtooda ay uga hortagi lahaayeen weerar lagu qaado maraakiibta ganacsi ee isticmaala biyaha Soomaaliya. si kastaba Shiinaha ayaa sanadihii u dambeeyay sare u qaaday howlgallada uu ka wado biyaha dalka Soomaaliya iyo kuwa caalamiga ah, waxaana ciidamadiisa ay dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wadaan gacanka cadmeed iyo sidoo kale biyaha fog ee dalkeena Soomaaliya. waa hagaag wali warqad TV ayaad nagala socotaan. imikana haddii aynu eegno madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ee Qoorqoor ayaa waxa uu isagu kulamo ka wadaa magaalada Gaalkacyo isagoo xiisadii ugu cuslaa qoorta la galay. madaxweyne Qoorqoor ayaa waxa uu la kulmay odayaasha iyo dhaqanka iyo waliba sidoo kale waxgaradka magaalada Gaalkacyo, waxa uu kala hadlay sidii loo dhameyn lahaa xiisada ee ka dhalatay dil loo geystay Sheekh Cali oo kamid ahaa dadka ugu caansan ee magaalada Gaalkacyo. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa iyadu waxa ay iminka baafinaysaa ama ay raadinaysaa eedeysanihii ka dambeeyay dilka Sheekh Cali Dheere, kaasi oo dowladdu ay sheegtay in la doonayo in gacanta lagu soo dhigo. sidoo kalena waxa ay ka dalbatay dhammaan shacabka Soomaaliyeed in ay gacan ka geystaan. madaxweyne Qoorqoor waxaa safarkiisa ku wehelinaya taliye xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cismaan Cabdulaahi Maxamed Kaniif, waxaana lagu wadaa inay kulamo la yeeshaan saraakiisha ciidamada iyo maamulka degmada si baaritaan dhab ah loogu sameeyo waxa keenay dilka Sheekha iyo waliba sidoo kale xiisadan ayaa waxa ay si adag uga taagan tahay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, iyadoo madaxweyne Qoorqoorna haatan xaalku uu ku xun yahay. ugu dambeyntiina munaasabad ka dhacday caasimadda dalka Jabuuti ayaa waxaa maanta markii shanaad xilka madaxweynaha dalka Jabuuti loogu dhaariyay Ismaaciil Cumar Geelle, kaasi oo ku guuleystay doorasho ka dhacday dalkaasi 9kii bishii Abriil ee sanadkan 2021. munaasabadda dhaarinta caleemasaarka madaxweynaha Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay madax badan oo Afrikaan ah sida hogaamiyaasha dalalka Kenya, Ethiopia, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo dhaarinta kadib goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay madaxda ka socota dalalka Afrika ee munaasabadda ka qayb galay, isagoo oo ballan qaaday in shacabka Jabuuti uu si cadaalad ah ugu shaqeyn doono.
sidoo kale madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu sheegay inuu sii xoojin doono xiriirka kala dhaxeeyay wadamo badan oo caalamka ah kuwaasi oo iska kaashadaan dhinacyada amniga iyo horumarka. dhammaan madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka oo uu qayb ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo dhaarinta madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxay ballan qaadeen inay kala shaqeyn doonaan dhinaca amniga iyo waliba sidoo kale iskaashiga ganacsiga. qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah intaynu dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.